السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشي نعيمة تهليل maantay waxaan rabaa in aan u faa'iideeyo gabdhaha walaalahay ah oo iga soo codsaday exercise-ka u fiican naasaha lagu yareyn karo ama wax u fiican oo naasaha lagu yareyn karo gabdhaha qaarkood waliba waxay ka cudur daarteen exercise badan ay sameeyeen oo hore u sameeyeen oo waxba aan u tarin midda koobaad waxaan rabaa inaan idin fahansiiyo waxaa laga yaabaa naasahaaga inay jirkaaga zaid uga weyn yihiin amaba ina adiga dhinaca yeelan tahay oo maxaa la dhihi jiray naasahaaga ay zaid u weyn yihiin okay haddii ay tahay jirkaaga naasahaaga inuu ka weyn yahay uu jirkaaga yar yahay naasahaaga zaid u weyn yihiin waxaa laga yaabaa inay waxaan yihiin dhaxal eedada habaryarta ayeyda abkuulanka hooyada qof inuu naasa weynaan jiray oo aad ka raacday waxaan aysa ahayn wax oo maxaa la dhihi jiray adiga aad celin kartid ama aad samayn kartid waa abuuris ilaahay taas kow midda labaad waxaa waaye waxaa laga yaabaa in aad zaid u cayilan tahay qofka markuu cayilana jirka bini'aadanka qofba meelu ka cayilaa gabdhaha qaarkood lugahay ka cayilaan gacmahay ka cayilaan gabdhaha qaarkood caloosha keliya ka cayilaan keliya ka cayilaan qaarka dambe qaar u weyn yihiin qaarka hore u weynaadaan so adiga waxaa la fiirinayaa hab jir dhismigaaga oo ilaahay kuu sameeyey ma waxaa tahay qof inta kore u weyn mise waxaa tahay qof isla eg mise qof inta dambe u weyn haddii aad tahay qof isla eg waxaa laga yaabaa jirkaaga markuu meel hilib galo kulli inuu wada galaayo sidaas darteed ay naasahaaga u weynaadeen marka waxa kaliya oo aad samayn kartid hadday saas tahay waa inaad iscaateysaa kadibna exercise ayaan kuusoo sheegi doonaa insha allah oo aad ku dhisi kartid naasahaaga micnaha qofka markuu iscaateeyo korkiisa xoogaa waa jilcaya marka wuxuu u baahan yahay masalkiisii inuu active gareeyo uu adkeeyo masalkiisii inuu ka shaqaysiiyo marka insha allah taas waan kuusoo sharaxi doonaa maraan gooni usoo sameynaya amaba maantaanba ku daraayaaba waxaan sameynaya aan ku tusaaya exercise aad samayn kartid insha allah midda labaad haddii aad tahay qof inta kore u weyn oo maxaa la dhihi jiray naasihiisaas darteed u weynaadeen waxaa laga yaabaa inuu ilaahay hab dhismiga jirkaaga oo saas uu sameeyey marka waxaa samayn kartaa oo keliya adiga dhanaa is caateynayo waxyaalaha la isku caateeyana videoyaasheeda kalean kusoo sheegay insha allah fiirso sida liinta in la cabo maxaa la dhihi jiray qofka inuu ordo waxyaalahaas camala kusoo sameynaysaa midda saddexaad aa jirto waxaa laga yaabaa qof caata ah inaad tahay oo maxaa la dhihi jiray jirkiisa dhan oo naasaha keliya ka cayilan yihiin hadday saas tahay laba wax waaye midda koowaad waxaa laga yaabaa inaad familkaaga ka raacday midda labaadna waxaa laga yaabaa inaad hormone imbalance haysatid oo hormoonkaaga uu isbedelay sidaas darteed maxaa la dhihi jiray ama kaniiniyaal a qaadanaysid saas ay naasaaga u weynaadeen marka hormone imbalance hadduu ku haayo waxaa sameynaysaa cuntadaada saxaysaa diet fiican aa galaysaa cuntooyinka ay ku badan yahay maxaa la dhahaa faadka iska ilaalinaysaa not faad oo dhan laakiin uu calorieska ku badan yahay aa iska ilaalinaysaa waxyaalaha oo sida burka iyo bataatiga iyo waxyaalahaas camalna waa iska ilaalinaysaa korkaaga cuntadaada iyo hurdadaada iyo biyo cabitaankaaga saddexdaas hadaa saxdid insha allah inta kalena waa kuu saxmayaan mid kalaa jirta ayadana adhoonana ilaa weyo haddii aad tahay hooyo oo maxaa la dhihi jiray markeeda hore caate ahayd laakiin kadib cayishay oo markay cayishay kadib naasihii zaid u weynaadeen waxaa laga yaabaa in ay kalifayso hooyanimada gabdho waxaa jira ayagoo markay yaryaraayaan naas dhan aan lahayn laakiin markii la guursaday kadib naas waa weyn yeeshay marka taasna waxa keliya oo aan ku eedeyn karno waxaa waaye dhalmada ama maxaa la dhihi jiray qofka hormoonkiisii isbedelay insha allah sidaas darteed exercise ayaan hadda idiin soo diyaariyey waan rabaa inaan idin tuso exercise-ka dhan ma idin dhammaystiri karo laakiin mid kasta hal xabaa idinka tusaaya inta jeer aad sameynaysiin iyo sida loo sameynayo insha allah tan koobaad waxaa sameynaysaa kursiga soo dhiganaysaa ana hadda kursiga gadaasheeda yaallo kursiga soo dhiganaysaa
waxaa soo qaadanaysaa gabsaarkaaga. aniga hadda waxaan haystaa laastigan, geedkan plastic waaye aan haystaa. haddaad rabtid xarigaa jiro xarigaana wuu jira, xarigaana waa soo qaadan kartaa. xarig oo guri ku yaala soo qaadan kartaa oo labadaada gacmood la ekaanayo. marka waxaa sameynaysaa kursigaan aan fadhiisanayo waa idin tusaa insha allah. xarig ahaanta idin tusaaya. marka xarig haysatid gabsaarkaaga aa isticmaali kartaa. in xijaabadeena yararkaasaan camal aad qaadan kartaa, guriga ku isticmaali kartaa. kan koobaad ee la raba inaad samaysid waxaa waaye gacmahaagu balacooda geynaysa ilaa intaas, gadaala geyne, waa soo celine, hora keenaysaa. waxaa la samaysaa garbahaaga, ma ka hoos marinaysid mana ka kor marinaysid, waa la samaysaa sidaas camal. waxaa sameynaysaa 20 hal daqiiqa u dhexaysiinaysaa, 20 kala sameynaysaa, haddana hal daqiiqa u dhexaysiin, haddana 20 kale, 3 sidaa sameynaysaa. hal xabo aan idin baroobeeyo. 1 2 3 saddexdaas aan idin tusay. waxaa idin tusay inaad sii wadiin insha allah. haddii aadan 20 wada samayn karin, waxaa isku daydaa ood samaysaa 10 ama 5 maalinta hore, kadib 10, kadib 20, 15 saas usii kordhinaysaa. mid waa kana. midka kale oo aad samaynaysidna waxaa waaye gacmahaaga xariga ma isticmaalisa karan. gacmahaaga saa u samaysaa, waxaa la sameeya garbahaaga saasaa u kala fogeyne, waa isku soo celine. ayadana waxaa sameynaya 20 jeer ama 10 ama 15 ama 5 sida awoodid. hal daqiiqa u dhexaysiinay aa ku nasanaysaa, haddana waa sameynaya 3 jeer aa sameynay. tan kusii xigta waxaa waaye gacmahaaga halkaas aad samaysaa. madaxaaga waa inay la sinaadaan, gacmahaagan meeshaas madaxaaga waa inay la sinaadaan, haddana waa isu keenaysaa, haddana waa kala fogeynaysaa. haddaad saana u qabanaysaa, saana sameynay. ayadana intaa samayn kartid 5, 10, 15, 20 ilaa ay intii kasii badan aad sii wadi kartid. mid kale jirto oo ayadana fiican. haddii bush up aad samayn kartid gacmahaaga, waxaa la dhisaya waa chestiga maxaa dhihi jiray, xabadka waxaa laga dhisayaa murqahana jilco badana. dadka murqaha markay jilcaan, naasihii culaysa soo wada koraayo, ma adka waa jilicsanaanaya. bushaaba sameynay. haddii kale derbiga aad tegey, gacmahaaga saaraysaas, waa kusoo dhaweynay, waa ka fogeynay, wajigaa kusoo dhaweynay, waa ka fogeynay. la bush up camal adoo dhulka joogo. waxaa kaloo jirta ayadana aad samayn kartid derbisaar anaga waa gacmaha dhulka dhiganay, lugahaaga kor marsiinaysaa. hadda ani waa idin tusi karaa, ani camal waa samayn karaa. qofka hadduu fudud yahay wuu samayn karaa, laakiin haddii aa culus tahay oo aada samayn karin, dhib malaha. waxaa samayn kartaa waxyaalo kale idin tusa aad samayn kartin insha allah, oo sida hadda bushaabka idin sheegay, iyo maxaa dhahaa derbiga aa cuskanaysid, iyo xarigaan, iyo maxaa dhihi jiray exercisyada kale aan tusay. waxaan rajeynayaa inaad ku guuleysan doontaan. waxa ugu fiican oo aad samayn kartid waa inaad iscaataysid. marka iscaataysidna gurigaaga adigoo jooga xarigaan isticmaali kartaa, ama waxaa isticmaali kartaa gabsaarkaaga, ama derbiga aa ku samayn kartaa bush-up. waxyaalahaasaa la sameeyaa insha allah. casharadeenana waan sii kordhinayaa. maanta intaan bilbilow waaye, laakiin waxyaalo kasii adagaan sii sameyn doonaa insha allah. sida dadka oo aan rabin guriga inay ku sameeyaan, oo raba jiimka inay ku sameeyaan, casharo jiimka ahna waan kusoo daraya hadduu ilaahay idmo. khayr ayaa idinkaga tegay. asalaamu calaykum.